haddana daawadeel waxaan rabnaa inaan idiin soo gudbino isqarxinta ama ismiidaaminta waxa ay diinteen ka qabto ma wax diinteenu ay sheegaysaa oo ilaa asxaabihii la sameyn jiray baa ma wax ku cusub oo ay dad kale nagu soo kordhiyeen baa laakiin maxay diinteenu ka qabtaa qofkii isdila ama isqarxiya ama toorihi isku dila ama wuxuu kala doonaa isku qarxiya diinteenu maxay ka qabtaa qofkaas ma jannadu galaya ma naartu galaya dad far badan ayaa bariyahan dambe yiraahda qofkii isqarxiya ama qof meel isku dilay waa mujaahid Sheekh Cabdiraxmaan ayaa inoo soo gudbinaya muxaadaradan aanu idinla jeclaysan inoo daawo ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay subhanahu wa ta'ala wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima dadiyoo naftiina hadilina ilaahay subhanahu wa ta'ala alla idin naxariis badan weeyaan marka qofku naftiisa inuu dilo isaga oo oranaya janna isa arfaysa dadkan waan galaafanaya diinta islaamka kuma jirto nabiga sallallahu alayhi wasallam hadith sahiha oo Bukhari iyo Muslim warinayaan nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa uu leeyahay isagoo arinta ka sheekeynaya nin baa dagaal galay kamid ah dadkii muslimiinta saxaabada ah waliba ninkaas markuu dagaal galay dad fara badan oo dadkii gaalada ahaa ee jihaadka la galay ayuu laayay markii la yaabeen saxaabadii kaleeto ninkan wacdaraha uu dhigayo iyo talaabada uu geystay ayaa waxay yiraahdeen hebel ahlu janno weeyaan marka nabigu wuxuu iska daayay inuu ahlu janno yahay ninkan aad u jeedaan ahlu naar weeyaan ninkuna wali ma dhimanin ahlu naar weeyaan saxaabada arintii way u cuntay weyday way la yaabeen ninkii dhaawac baa soo gaaro dhaawac buu noqday markuu dhaawac noqday iyo xanuunka u adkeysan waayay markaasuu naftiisa dilay isagu marka arintu nabigu sheegay soo baxday markaasa ilaahay wuxuu subhanahu wa ta'ala baadalani 'abdi bi nafsihi haramtu alayhi al-janna adoonkaygu naftiisa buu igala degdegay oo uu dilay janna waan ka xarimay buu ilaahay subhanahu wa ta'ala xadiiska waa sahih Bukhari Muslim baa warinaya nabigu wuxuu leeyahay xadiiska waa sahih alayhi salatu wasalaam maalinka qiyaamada qofku haduu midi ama bir isku dilo oo bir isagoo isku turqayo oo isku dilo qiyaamada naarta jahannama birtii baa lagu cadaabaya wuuna ku waarayaa buu nabigu alayhi salatu wasalaam qofku haduu sun iscabsiyo oo suntii isku dilo maalinka qiyaamadana marka la tago suntii baa lagu cadaabaya oo uu ku cabayaa jahannama dhexdeeda ayuu nabigu alayhi salatu wasalaam nabigu wuxuu qofkii meel iska soo tuura jabal ama buur meel iska soo tuura ama dabaq oo sidaa isku dila ma qiyaamada marka la tagana sidaas isku dilaya naarta dhexdeeda oo uu ku warayaa buu nabigu sallallahu alayhi wasallam nabiga alayhi salatu wasalaam wuxuu sii raaciyo kaleeto uu yiri xadiis kale tasna saxiixa alladhi yahnaqu nafsahu yahnaquha fi nar jahannam qofki naftiisa caajiya naftiisa wuxuu ku dhex caajinaya naarta jahannama ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam marka qofkan isdilayaahu suicide sameeynaya waa qof naftiisii dilay weeyaan nafta illa dilaana ilaahay baa nafta ku siistay ilaahay baa ku dhiibtay ilaahayna subhanahu wa ta'ala inaad adigu disho qooma ogol rabbi subhanahu wa ta'ala marka xaraam weeyaan qofka inta waxa uu dheer suicide sameeynaya isagu uu isdilay oo naartaas uu aadaya waxa u sii dheer waliba dad kale oo muslimiin oo innocent abu dilaya kuwaana ilaahay wuxuu ku yiri quraanka ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما من رب سبحانه وتعالى ومركو إلهي كهد لي الدنبية لا قال قفك مسلم كأهل حق درن لا قد له وحوشة قفك دل إنه شنطة عقاب هليه شنطة عقاب وهم حي جهنم قال يا مركا كوبات وكوارا يا مركا لبات إلهي بان لعنة يا مركا صدحات نحريست الله كفوين يا مركا أفراد إلهنا عذاب ويب الله ودياري سبحانه وتعالى marka qofkanu naftiisa uu dilay oo naar buu ku galay nafaf kale in santiana uu dilay oo naar buu ku galaya marka janna u soo carfaysa oo suicide lagu helayaa ma jirto wax sax ma aha taaso mid kale isqarxinta iyo suicide-ka islaam iyo muslimiin lagama baranine dad kale taa laga bartay duni kale laga bartay wax dadka muslimiinta laga soo gaaray ma aha aslan marka waxaan doonayaa mas'aladaas inay inaga inoo cadaato aan isku daynana qof walba inta awoodiisu tahay intuu arinta qayb kaga qaatay inuu gaarsiiyo oo aan u cadayna dadka inay xaraam tahay suicide-ku in naar lagu galay suicide-ka
قف كانوا أنت أي نفط كبح حيسا أي النار توقص كيسا جنة وقامص كيسا بينوي كنت ما هي الجنة ذات كان أولين ينفتي سوديليو جنة كم تجيو مركوا ليان الإسلام في وكاسا وحن مرك الله سمينيو وح إسلام الدين إسلام شقق كل معها